Assalaamu calaykum. Maanta waxaan ka hadli doonaa mowduuca OSI model oo ku sharxi doona luqadda Soomaaliga. Fahamka guud, sharaxaad iyo tusaale hadduu Ilaah yiraahdo. OSI model waa maxay? OSI model waa tixraac loogu talagalay in lagu xaqiijiyo habka ay u baxdo daatada marka laga diro kombiyuutar loona diro kombiyuutar kale. Hawshaas waxaa loo yaqaanaa OSI model, waana toddoba hab ama waxaa loo yaqaanaa 7 layers. Hadduu Ilaah yiraahdo halkan ayaan ku sharxi doonaa. OSI waxaa loo soo gaabiyaa Open System Interconnection, waana in laba system oo si furan la helaa. OSI modelka waxaa tixraacaas ama magacaasi bixiyay niman loo yaqaano ISO International Organization for Standardization, oo ah organisation u taagan inuu sameeyo magac bixinta iyo xuruufta si caalami ah. OSI model waxay ka kooban tahay 7 layer oo ka bilaabanayo qaybta hoose tirada 1 ilaa 7. Waxaa ugu horeeya application layer, presentation layer, session layer, transport layer, network layer, data link layer iyo physical layer. Mid walba wuxuu leeyahay howl gooni ah oo u qaabilsan yahay daatada xawilitaankeeda ama diristeeda. Waxaa ugu horeeya application layer oo ah qaybta qaabilsan daatadii ugu dambeyn inay soo bandhigto. Waxaa ku xigo presentation layer oo ah daatadii la soo bandhigayay qaabkii inay marka hore soo bedesho, haddii uu sawirka yahay sawir ka soo dhigto, hadduu qoraal yahayna qoraal ka soo dhigto. Session layer waa established in the connection between two hosts, oo ah inay qirato in daatadii ay soo gaartay halkii loogu baahnaa. Transport layer waa layerka qaabilsan wax loo yaqaano host to host, oo ah daatadii in laga qaado meel loona geeyo meel kale. Taas macnaheedu waxay tahay daatadii in loo qaado laba hab oo loo yaqaano TCP iyo UDP. Daatada waxay u baahan tahay in loo diro qaab TCP ah haddii loo baahan yahay data secure ah, laakiin haddii loo baahan yahay data fast ah oo aan secure ahayn waxaa la adeegsadaa UDP. Wuxuu mas'uul ka yahay in daatadaas errorkeeda uu qabto iyo inuu saxo dhammaan waajibaadkii ahaa in daatadii meel laga qaado meel kalena la geeyo. Network layerka wuxuu mas'uul ka yahay inuu akhriyo IP addresska ama ciwaanka ku qoran daatada la diray, kaasoo ah example-kiisa routerka iyo waxa loo yaqaano layer 3 switches-ka. Data link layerka waa in la helaa daatadii meel sax ah oo lagu hagaajiyo, kaasoo qaabilsan yahay layerka loo yaqaano data link layer. Waxaana ka mid ah example-ladiisa switch-ka oo ah daatadii markay soo gaarto switch-ka waxay u baahan tahay inay raadiso MAC addresska kombiyuutarka si daatadii loogu hagaajiyo kombiyuutarkaas. Haddii la helo MAC addresskii, waxaa loo baahan yahay physical layerkii oo ah daatadii in loo diro meel physical wire ah ama xarig lala xiriiriyo daatadii. Waxaana tusaale kuugu filan habka NIC-ga oo loo yaqaano network interface card-ka iyo cable-ka. Kuwaasi waa 7 layer ee ah 7 layerska. Isku day inaad wax badan ka raadisid si aad u fahantiin. Aan fiirino tusaalaha halkaan. Waxaan kasoo bilaabi doonaa qaybta ugu hooseysa oo ah physicalki. Marka hore waa in la helaa meel physical ah oo daatadii lagu soo xiriiriyo. Mid walba haddii aan fiirino application-ka iyo laba qayb waaye, qaybna waa responsibility of host, qaybna waa responsibility of network. Physicalka wuxuu ka mid yahay qaybta responsibility of hardware-ka ama responsibility of network-ka. Data linkiga isaga waa media access-ka iyo logic link control-ka. Waana daatadii in la helo destination address-ka iyo source address-ka. Network layer-ka waxaa loo baahan yahay daatadii in loo helo address sax ah oo lagu hagaajiyo oo loo yaqaano IP addresska. Sidoo kale transport layer, daatadii markii loo soo yeero address sax ah waa in la soo xawilaa ama loo adeegsadaa error recovery, flow control ama noocyo ka mid ah noocyada daatadii lagu qaado ama UDP ha ahaado ama TCP ha ahaado. Session layer-ka wuxuu go'aamiyaa daatadii markay timaado xilligii daatada la gaarsiin lahaa in la bedelo, oo ah in daatadii recovery lagu sameeyo oo daatadii kadibna la present gareeyo. Session layer-ka isaga waa in daatadii lagu diraa meelo kala duwan.
Okay, presentation layerka waa in datadii lasoo bandhigaa iyadoo la isticmaalayo processka ah ama iyadoo lagu sameynayo datadii haddii encryption lagu sameynayo decryption. Application waa layerka ugu dambeeya oo ah datadii in loosoo bandhiga qaabkii loogu talagalay ama loo soo diray markii hore. From sender to receiver waxaa jiro laba hab ama saddex nooc oo loo kala saaro OSI layerka: hardware layer, heart of OSI, iyo software layers. Qaybta hoose waa hardware layerska. Haddii aan haddaan isbarbar dhigno TCP/IP model iyo OSI model, TCP/IP waxaa design garay nin la yiraahdo DOT oo ah Department of Defense oo ah wasaaradda Mareykanka qaybta difaaca. Todobadii layer waxay kusoo koobeen 4 layer. Applicationka wuxuu u joogaa iyaga session presentation applicationka, halka transportigana uu joogo transportiga, halka internetkana uu joogo networka, halka uu joogo inta data linkiga ama network access-ka anagana noo joogo data linkiga iyo networka. waa kuwaana iyadoo la isbarbar dhigay todobada layer oo OSI 7 layers TCP/IP layers, mid walba shaqadiisa iyo hawshiisa. intaas ayaan kusoo gabagabeynaa. fadlan like share. Assalamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.